markaasaa ciise la yimid iyaga meel Getsemane la oran jiray oo wuxuu xertii ku yidhi halkan fadhiista intii aan halkaas tegayo oo ku soo tukanayo. oo wuxuu watay Butros iyo labada wiil oo Sabadi oo wuxuu bilaabay inuu calool xumaado oo tuuraanyoodo markaasuu ku yidhi naftaydu aad bay u calool xun tahay tan iyo dhimasho halkan jooga oo ila soo jeeda. waxoogaa ayuu hore u socday oo wejigiisuu u dhacay oo tukaday isagoo leh aabbow hadday suurtoodo koobkan ha i dhaafo hase ahaatee yaani noqon sidaan doonay laakiin sidaa doonaysid ha noqoto. xertii ayuu u yimid oo wuxuu arkay iyagoo hurda oo wuxuu Butros ku yidhi waa sidee miyaad kari weydeen inaad saacad keliya ila soo jeedaan? soo jeeda oo tukada inaydanaan jirabaadda gelin. ruuxu waa diyaar laakiin jidhku waa itaal daran yahay. haddana mar labaad ayuu tegey oo tukaday isagoo leh aabbow haddii aanay suurtoobin in koobkanu i dhaafo anigoo cabba maahee sidaa doonaysid ha noqoto. mar kale ayuu yimid oo arkay iyagoo hurda waayo indhahoodu lulmay la cuslaayeen wuu iska daayey oo haddana ka tegey oo mar saddexaad ayuu tukaday isagoo haddana hadalkii oo kale ku hadlaya markaasuu xertii u yimid oo ku yidhi hadda seexda oo nasta bal eega saacaddii waa dhowdahay oo wiilka aadanaha ayaa dembiilayaal loo gacan gelinayaa. kaca aan tagnee eega kii i gacan gelin lahaa waa soo dhow yahay. oo intuu weli hadlayey ayaa yudas oo 12 ka mid ahaa yimid isaga iyo dad aad u badan oo seefo iyo ula sita waxay ka yimaadeen wadaadada sare iyo waayeelada dadka. kii gacangeliyey ayaa calaamo kula ballamay oo ku yidhi mid alla midkaan dhunkado waa isagii ee qabta. kolkiiba ciise buu u yimid oo ku yidhi nabad macallimow. wuuna dhunkaday kolkaasaa ciise ku yidhi saaxiibow maxaad u timid? markaasay yimaadeen oo gacmahooda ayay ciise saareen oo qabteen oo bal eeg mid ka mid ah kuwii ciise la jiray ayaa gacanta fidiyey oo seeftiisa soo bixiyey oo wuxuu ku dhuftay wadaadka sare addoonkiisii oo dheg buu ka gooyey. markaasaa ciise ku yidhi seeftaada meesheedii ku celi waayo kuwa seefo qaada oo dhammu teeg bay ku halligmi doonaan. ma waxaad u malaynaysaa inaan aabbahay baryi karin oo uusan haddeer ii soo diri karin malaa'igo 12 muddo ka badan? haddaba sidee buu u noqon doonaa qoniinku kale? waa in sidaas noqotaa. saacaddaas u dheeraa ayaa ciise dadkii badnaa ku yidhi ma waxaad iila soo baxday seefo iyo ulo inaad i qabataan sidan tuug ahay? maalin walbaba macbudka ayaan fadhiyi jiray oo wax bari jiray imana aydnaan qabsan. laakiin waxaan oo dhan ayaa noqday in qorniinka nebiyadu rumoobo. markaasaa xertii oo dhammu ka wada tageen